بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد ودرسيني سدحات تفسير القرآن الكريم جزء تبارك سورة الحاقة أيوك بالله إن شاء الله تعالى وسورة لودي سورة ذي كهر لمدا ومكي القرآن كي هجرة كهر سودجي waxay ka hadlaysaa qiyaamada iyo xaqiiqadeeda iyo ummadaha beeniyay waxay la kulmayaan adduunka iyo aakhira intaba sidoo kale waxay ka hadli doontaa mashaahidda qiyaamada markii adduunkani dhamaado oo aakhira la tago dadku waxay la kulmi doonaan iyo meelahay ku kala dambeyn doonaan ay ka hadli doontaa iyo sababta keentay in ay natiijada ku dambeeyaan waxa kale oo suuradu ay gabagabadeeda ka hadli doontaa oo lagu khatimi doonaa quraanka kariimka ah inuu yahay hadal ilaahay soo dejiyay oo san gabayna ahayn wax kalena ahayn inuu yahay ilaahay tabaaraka wa tacaala hadal soo dejiyay nabi maxamedna uu doortay salawaatu rabbi wasalaamu calayhi inuu gaarsiiyo khalqiga الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة الحاقة تنحقة حقيقة مدربتها ما الحاقة تحقيقة محيطة تردبت حقيقة حقه محيطة وما أدراك محاك أغيسي ما الحاقة تا حقيقة ردبت محيطة محاك أغيسي وقيامة مقعيد هذا أيها كمتة الحاقة القارعة كل واسماء قيامة أي كمتهي مد والبنا waxay tilmaamaysaa sifaadka qiyaamadu ay leedahay qayb kamida مثلا الحاقة waxa loogu magacaabay لأنها حقيقة oo sugan oo anbiya kama dhibcaan oo jira waa marka labadan su'aalood laga dambeysiyay waa baraarujin waay shayga marka la doonayo attention-kaaga ama dareenkaaga in lagu soo jeediyo yaa su'aal laga dhigaa mal xaqatu wama adraaka mal xaqatu shay weyn waay shay in la isweydiiyo mudan waay shay in jawaabtiisa la raadiyo waay طيب كذبت ثمود وعاد بالقارعة كذبت ويبينسي ثمود ري ثمود iyo وعاد ري عاد waxay beeniyeen بالقارعة مدي كوينيسي مخلوقا قراعيسي وإيدي واي سيكو بينيين واي ري ثمود يريعاد وأمديه هوري التاريخ تصومري لبن نبي بالله كلا دري وحين كمدين أمدها قرآن كشكيو تاريخ ذي يسيد الله هلاقي ينبي ذي الله دري marka labadooduba waa beeniyeen qiyaamada qaarica waxa loogu magacaabay iyadana markay timaado makhluuqaadka oo dhan bay garaacaysaa way kawinaysaa macnaha waxay burburiso waxay dhaawacdo waxay dib u geysato waa garaacdo marka waa kawiso way beeniyeen labada qolo marka fa amma thamud ree thamud markay beeniyeen maxaa ku dhacay waay fa amma thamud fa uhliku wala halaagay بالطاغية قيلدي حداف كأهيد بالو هلاقي طاغية وشيء مركو قوقو أو حد كرافو مركا قيلو يجرير وضع الصعدة أيال لغو السيداي وحداف ولا بابية مركا وأما عاد ريعاد فأهلكوا ولا هلاقي بالريح ضبيل بالو هلاقي صرصر وآد قبو عاتية وأيضنا حد دافع
caatiyada waa markay shadiidatul hubuub tahay markay xoog u socoto ayaa la yidhahdaa caatiya oo ay madax adag tahay wax walba jiidhayso naxariis ayna lahayn ama caatiyatun malaa'igtii khasnadaha dabaylaha hayay iyay yani ay muxuu ahay ay gudubtayo ay ku samaysay madaxaday ku samaysay waa la yidhaahdaa yani catat cala alkhazana taana way dhahaan sarsarkana waxaa la yidhaahdaa ama qaylaa la yidhaahdaa ama qabow sarsarin bimacnaa qayliyaysoo qarraclaynaysa oo shanqadhaysana waa la yidhaahdaa qabow iyo qaylo isku darsatayna way noqon karaysa sakharahaa alla waa sakhiray ama dabayshaasoo sakharahaa alla uu leeliyey calayhim korkooda ayuu ku leeliyey oo ku celceliyey 7 layaalin 7 habeen wa 8 ayaamin iyo 8 maalmood xusuuman oo macnaha isku xiga kuwa isku xiga aan kala goonayn fatara waxaad arkaysaa alqawma qowmkii baad arkaysaa fiihaa habeenada iyo maalmaha dhexdooda sharca iyaga oo kuwa daadsan ah kuwa la lagday oo daadsan iyagoo baad arkaysaa kaannahum sidii iyagoo acjaazu nakhlin geed timir ah salalkii oo kale ama jiridihiis oo kale ah khaawiyatin oo gudaha ka bololay yani geed timira oo salkiisu intuu dhacay jiridiisii dhacday jiridda gudaheeda wuxuu ku jira caloosha ku jira in la saaray oo bololay baad moodaa markii dabayshii intay ku noqnoqotay ay kala daadisay fahal tara miyaad arkaysaa lahum iyaga min baaqiyati wax ka hadhay naf ka hadhay oo baaqi ah miyaad aragtaa waa kulligood waa la dhameeyey bimacnaa markay beeniyeen oo qiyaamadii beeniyeen nebigii intuu u yimid qolana nebi saalix baa u yimid qolana nebi huud baa u yimid labadoodaba markay ambiyadu u yimaadeen warkii ay u sheegeen oo war qiyaama imaanaysa war isjira la yidhi way ku gacan saydheen kadibna labadoodaba ilaahay waa halaagay qisadooda iyadoo dheer bay qur-aan kusoo noqnoqon doontaa laakiin halkan waa la iska soogay maqsuudkaa laga raacay ayib qolo waxaa lagu halaagay dabayl shanqadhaysoo qabow oo haddana xaddhaaf dabaylihii la yaqaanay aan ahayn waa lagu celceliyo way ku noqnoqoto mayna dhaafin 7 habeen iyo 8 maalmood waxaad meesha ka garanaysaa maalinimay ku bilaabatay maalinimana waa ka dhamaatay sidaasay marka 7 habeen iyo 8 maalmood ku noqonaysa ayib ma kala go'in oo ma faaruqin oo intaa way dul joogtay waxun bay burburinaysa markay ay dabayshii ku dhacday way daadisay marka daadinta waxaa u dheer calool ku jirtiina way ka saartay sida laga fahmayo kaannahum acjaazu nakhlin khaawiya geed timiroo dhacayoo jiridiisii oo haddana gudaha ka bololay baad moodaa gudihii oo dhan baa baxay ayib fasiriinta qaar ka mida waxay leeyihiin dabayshu intay dabada ka gasho ayay waxa uur ku jirtoo dhan xagga hore kala baxaysay marka shirkii oo qolfafahoo yaalla bay marka tuuraysa fahal taraa lahum min baaqiya dadkaa sida loo halaagay miyaad ku aragtaa wax ka hadhay waxba kama hadhin waa taariikhday ku tageen ayib maxaa keenay in la baabi'iyo waxaa keenay calashaana xaqii bay beeniyeen xaqiiqadii looga warramay oo qiyaamada ahayd ayay diideen ayib iyagii intaasaa lagaga soo baxay qolyo kale la galay haddana wajaa waxaa fircawnu fircoon iyo waman qablahu kuwii ka horreeyey waalmu'tafikaatu kuwii gembismay bilkhaati'ati bay la yimaadeen ficilkii ama falkii gafka ahaa falkii gafsanaaye khaldanaa bay la yimaadeen facasow way caasiyeen rasuula rabbihim rabbigood rasuulkiisii bay caasiyeen kii ilaahay u soo diray bay caasiyeenoo amar diideen fa akhadahum allah qabtay akhdatan qabasho raabiyatan oo siyaada ah kordhisan daran oo macnaha waxay qabashooyinka kale ka siyaadsan ayuu alla qabtay innaa see loo qabtay wey marka waa faahfaahin qaabka loo qabtay waa sidan innaa annagu buu alla yidhi lamaa goortii maya waa qolo kale waa nebi nuux qaybtani innaa annagu lamaa goortii taqaa ay qooqeen almaau biyihii markay xad dhaafeen oy bateen oy xuduudtii ka baxeen
حملناكم وان إذن حنبارني في الجارية دونتي بان إذن تي سعتي بان إذن حنبارني دونتي سعتي أيان إذن حنبارني لنجعلها سأن أغير لدونتا إيضا يكون لمدك لكم إذن كتذكرة وانو شيئات كوانا قادتان عقل علين سيدين قندرسي وتعيها ولتعيها إيوه إن أي ويليسو أو أي حفظدو أذون لك واعية أو حفظينيسو وانا قادنيس فرعون نبي موسى الله دري عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام يا هارون إيقنا قال نمي إلي ما دينو خاطئة وحليدا هذا الخاطئة وفلك أما فعلك قفسن وخلدن خاطئ هدي لي هذا بمعنى قفك أما خلط كمرك اللوقستو كسلو سميا لي هذا خاطئ لكن هدي مخطئ لي هذا وفعلك الرباعي مركا كي ماذا مركاسي وحوي وحدعي كرسي إنه يهي كنت تلقى الآن فعلك ودعي لكن خاطئ وكدوين يساق marka falkii macsiyadii iyo khaladkii bay la yimaadeen fal khaldan bay la yimaadeen oo beenintii iyo gaalnimadii ah wala si sharaxo waxa li rasuulka ilaahay u diray bay beeniyeen bay macaasiyeen ilaahay waa qabtay tabaaraka wa taala oo fircoon waxa lagu halaagay waa kii badda lagu tuuray isagii wax la socday ciidamadiisiiba badda la galiyay lagu baabiyay wal mu'tafikaatu bil khati'a mu'tafikadana waxa la yiraahdaa waa kuwii gamboomay كان بسمي أو يعني لفوريوا وقوم لوط أتيذنا القرآن كشكي مركي أي يجنا نبي الله لوط وتجي أو توحيد كأوبن دجي سلامر كان فلكي حماية فحشجي أو كرهبي ويبينين يجنا وكي كر لوقاد ولا دبرجي كديمنا لجراعي سيدا لجوبابي مركب فرعون ينتي كوريس يول مؤتفكات يا واكوي يعني جنب اسمي واي يعني متفق كذا واحد هذا الشيء مركو مدحي سهوس هذا او جنب اسمه هذا مركو عذابك يقابك الله عقابي بالله تلمام يا مان ومدها سودان مركو الله تبارك وتعالى وحساء يلي ودروس تاريخ داس لغا شيكينيو ماها اون قصوين لغو فاكهيستي لكن ودروس كل waxa la leeyahay sidaas ay wax soo ahaan jireen asbaabtaasi waa asbaabtii umaduhu ku baabi'i jireen waana sunno ilaahayo jidkoodii oo kale qolada martay iyaguna natiijadii oo kale la kulmayaan asbaabtaasina waa asbaabta umaduhu ku badbaadaano barwaaqada iyo horumarka ku helaan iyaduna waa sunno ilaahay oo waa caado mujtamacaadkii bulshooyinka halka maray iyaguna natiijadaas ay helayaan marka waxa way waa duruus taariikhiya waa quraankuna markuu qisas ka sheekaynayo yani waxa way sidaas ujeedadu waxa way dadka inay waadan u noqoto waa inna lamma taqal ma hamalnakum fil jariya wa nabiyullah nuh alayhi salam markii isagana la diray oo loo diray qoomkiisa loo diray waa kuwa iyagana diiday kadibna doon samee la yiri doontii waa kii muddo sameynayay doontii markay diyaar noqotayna isaga iyo mu'miniintii wixii asaar karta saar baa la yiri intii kale marka biyo xadaafa oo suuratu hud waa kale kaga sheekay dhulkana biyo soo daabaa la yiri samadiina biyo keen baa la yiri meel waxay gaareen labadii biyo markay kulmeen yaani wax walba ka sareey taas la tilmaamay inna lamma tagal ma xadkii bay dhaafeen markaasaan doontii yarayday nabi muuse sameeyay nabi nuux sameeyay ayaa marka lagu qaaday innaga marka la ilaahay hamalnaakum baa la leeyahay hamalnaakum idin kaan idinku xambaarnay doonta iyada oo idinku badbaadinay annagana ma aanan joogin sababta la inoo leeyahay waxa weey annaga halkaasaan ka farxanay kuwii doontu qaaday ee badbaaday ayaa mar labaad aadamuhu ka farxamay hadii kuwa la baabi'in lahaa awiyadeen bay ahayd innagana ma inaan nimaadeen Soomaa marka nicmadii iyaga loo galay inaga la inoo galay inna lamma tagal ma hamalnakum fil jamiriya linaj'alaha lakum tadhkira sayan idin ka dhigno waano linaj'ala hada waxway iyadii doontii nabi nuux iyo doomihii kale ee la midka oo dhan oo loo isticmaalo doomo iyo maraakiib waanaan idin ka dhignay wata'iyaha udhun waa'iya laakiin waxa wax ku qaadata oo xifdida
oo darsigaasi ka faa'iideysata oo wax ku qaadata dhag wax xifdinayso dhag wax yeelayso diyaar waa inay wax qaadato طيب فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية الكنا وحي آيدو كورميان أدون كان سيدان أدسان مركا وقتي سودا ماذا لك جبيني وحيالها دعي دونا سيوحوا دعي دونا فإذا قرتي النفيق